munaasabadani ay xilka ku kala wareegayeen gudoomiyaha hore gobolka shabeelaha dhexe iyo gudoomiyaha cusub ayaa ka dhacday caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle gudoomiyaasha degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka shabeelaha dhexe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar wareen waxaa munaasabada ka hadlay Suldaan Cabdirashiid iyo gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Jowhar dhinaca arrimaha bulshada Jibriil Xaraari waxayna ku booriyeen mas'uuliyiinta iyo shacabka in ay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub madiina cadow culow gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka waa mas'uul ninka mogow maqal tartankaasna ay ku guuleysatay madiina cadow gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeelaha dhexe waxaan leenahay hambalyo waxaa dhankooda ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka Roorungood Xabiib Warsame Xantiir iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada Jowhar Xaliima Maxamed Xaaji Madyan ayaa sheegay in iyagu soo doorteen ayna garab siin doonaan aniga oo ka socdo degmada Roorungood qaar nooga dhintaan markii la soo qaado foosha dhex jid ma haysano laami ma haysano caafimaad ma haysano intaasoo dhan inay noo doodaan rabnaa annagana waxaan kuwii taageeradeeda ahay ee garab siinayay haddana waxaan diyaar u nahay in ay hawsheeda ilaahay la fududeeyo annagana aan gacan ku siino waxayna goobta ka hadlay gudoomiyaha hore ururka haweenka gobolka shabeelaha dhexe Saciid Maxamed Nuur Saciid Buris iminkana ah wasiiru dowladda wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle ayaa iyana khudbad xil wareejina jeedisay gudoomiyaha cusubna ku soo dhaweysay madiina cadow culow waxaan xilkii aniga aan hayay ee ururka haweenka gobolka shabeelaha dhexe ahay oo u gudbay wasiirka haweenka waxaan maanta si iyadoo la wada joogo maamul iyo mas'uul iyo shacab iyo bulshada aan ku wareejinayaa gabadha codka loogu doortay 8 degmo ee codka siiyeen oo ah madiina cadow culow waxaan leeyahay hambalyo xilkaad ii dhibateen duur ma dhigana inuu ciloobin aniguna maanta ballan qaadaya cid allaale cid alla ka shakaro alxamdulillaah shukr horumarintiina ayaan aniguna u taaganahay ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha xogeenka gobolka shabeelaha dhexe dhinaca dhaqaalaha oo wakiil ka ahaa gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe si xor iyo xalaal ay waxay ku doorteen 8 degmo gobolka shabeelaha dhexe gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe ururka haweenka waa kuwa hambalyeeyna anagoo ka wakiil gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe dhamaan maamulka Hirshabeelle waxaan aad iyo aad u soo dhaweeynaa xil wareejinta maanta ka dhacday meeshaan Maxamed Baadle warbaahinta qaranka Soomaaliyeed xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar.